Gorfayn TV isha wararka warbixinada dhacdooyinka ha mogaanin. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa Gorfayn TV daawada meel kasta joogtiin waxaan dileynaa kula wanaagsan. Warbixinteena waxaynu ku soo qaadanaynaa warbixin dheer oo lagu sheegay in dowladda Turkiga diyaar u tahay inay ku dagaalamayaal calool shaqaystayaal ay u soo diraan dalka Soomaaliya. Shabakadda wararka Sky News Arabia.com waxay bishan December 2020 ay soo daabacday warbixin dheer oo ku aadan qorshaha madaxweyne Erdogan u dagaalamayaal ugu soo dirayo Soomaaliya. Shabakaddu waxay sheegtay in ilo wareedyo lagu soo karo ay ka soo xogteen xogtaasi. Warbixintu waxa kale oo lagu muujiyay in dagaalamayaasha Syriyaanka ee la doonayo in la soo diro Soomaaliya laga soo xulay dufcada dagaalamayaal haatan tababar u socdo waqooyi galbeed dalka Syria iyo koonfurta caasimadda dalka Liibiya ee Tripoli. 500 oo ka mid ah dagaalamayaashaasi loo soo diray Soomaaliya waxaa laga soo qaadan doonaa xarumo tababar oo ku yaala deegaanada Ras Al Ain, Afrin iyo Tal Abyad oo ka wada tirsan waqooyiga Syria halka 700 kalena noqon doona kuwo dib loogu soo celinayo dalka Liibiya. dhinaca kale Jaasim Maxamed oo madaxa xarunta Yurub ee daraasaadka cilmi baarista waxa loogu yeeray argagixisada oo la hadlay telefishinka Sky News Arabia waxa uu sheegay in dhaqaaqa Turkiga ay dagaalamayaasha Syria ugu dirayaan Soomaaliya ay tahay muhiimadda ay Turkiga u arkaan geeska Afrika. Jaasim Maxamed waxa uu ku sheegay wareysiga qaaska ee uu telefishinka Sky News Arabia in xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee AK Party ee haya talada dalka Turkiga ay u arkaan inay xoojiyaan muhiimadda Soomaaliya iyo inay dadaal u galaan oo ku aadan danahooda dhaqaale sida barwaaqada shidaalka ee dhex badda iyo bariga Soomaaliya. madaxweyne Erdogan waxa uu dabeeqadii bishii Janaayo ee sanadka 2020 sheegay in dowladda federaalka ay ka heleen codsi ku aadan inay Turkiga shidaal ka baaraan xuduud badeedka Soomaaliya balse arrintaasi waxaa isla markii beeniyay wasiirka batroolka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed. sidoo kale saxafiga Mustafa Khalil oo u dhashay dalka Syria oo la hadlay telefishinka Sky News Arabia waxa uu isagana sheegay inuu rumaysan yahay in Erdogan doonayo inuu xoojiyo joogitaanka Turkiga ee mandaqada badda cas iyo gacan biyoodka cadmeed. saxafiga waxa kale oo wareysigiisa ku sheegay inay Turkiga doonayaan inay dhistaan saldhig military oo ay ku handadaan danaha Masar iyo Sacuudiga waa sidii hadalku yeeray. waxay intaas ku dareen Turkiga markii ay ku fashilmeen inay saldhig ka dhigtaan jasiiradda Sawakin ee dalka Suudaan inay xoog saareen inay saldhig ku yeeshaan geeska Afrika ee loo arko ama ay u arkaan deegaan istiraatiijiyad qaas ah leh. si kastaba haatee qorshaha ay Turkiga ku doonayaan inay ku dagaalamayaan caloosha u shaqaystayaal ah oo Syriyaana u soo diraan Soomaaliya waxay ku soo beegmaysaa xilli ay musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya ay qeyladaan xoogan ka keeneen shicnad huba oo ay dowladda Turkiga u soo dirayso dowladda federaalka Soomaaliya waa sida hadalka u dhigeen. ugu dambeyntii ma jiraan warar madax bannaan oo xaqiijinaya in Erdogan uu doonayo inuu ciidamo calool shaqaystayaal u soo diro Soomaaliya marka laga reebo warbixinta shabakadda wararka Sky News Arabia ee lagu sheegay in Turkiga ay doonayaan inay dagaalamayaasha u soo daabulaan dalka Soomaaliya walow ay Turkiga galaagal xoogan ku leeyihiin arrimaha Soomaaliya iyo inay saldhig tababar military ku leeyihiin magaalada Muqdisho. intaana kale waxayna ku soo qaadanaynaa hogaamiye ka tirsan kooxda TPLF oo la sheegay in uu qabtay xalaq qaxooti. eedeysanaha oo magaciisa lagu sheegay in Kuweho Mezeli waxaa la sheegay inuu ahaa madaxa jabhadda TPLF ugu qaabilsan galbeedka Tigreega islamarkaana maskaxdii ka dambeysay weeraro ama xasuuq ka dhacay deegaankaasi sida ay sheegtay wakaaladda ama warbaahinta Fana. waxaa la sheegay in sarkaalkaasi la qabtay uu ku jiray ama ku dhumaalaysanaya xero qaxooti oo ku taala degmada Shire ee gobolka Tigreega. Kabtan Emmanuel Belete oo ah taliyaha qaybta shanaad ee taliska guud ee waqooyiga dalkaasi la hadlay wakaaladda wararka Ethiopia eena waxa uu sheegay in eedeysanaasi loo aqoonsan yahay inuu ahaa gacanta midig ee jabhadda TPLF islamarkaana uu ku lahaa tiro dilal iyo jirdilo kale oo ka dhacay degmooyinka Bakayr, Qafta iyo Xumeera waa sida hadalku yiri. waxaa kale oo la sheegay taliyaha la qabtay ee lagu magacaabo Ankuye Mesele
waxaa la sheegay inuu mas-uul ka ahaa ama uu hogaaminayay dagaal ka dhacay bakeer xumeera iyo qorshe lagu doonayay ee lagu qabtay qafta. sida laga soo xigtay kabtan Amaanul waxaa eedeysanaha la sheegay in uu ugu dambeyntii iska tuuray bistooladii qori AK-47 oo uu watay kadibna uu cararay degmada Shire halkaasi oo lagu qabtay xilli ku dhugmaalaysanaya xero qaxooti oo ku taala magaaladaasi. taliyaha waxaa kaloo sheegay kadib markii uu bilowday weerarkii la yaabka lahaa ee ay jabhadda TPLF ay bilowgii bishii November ay ku qaadeen ciidanka dowladda ee ku sugnaa waqooyiga dalkaasi gobolka Tigreega in eedeysanahaasi uu hogaaminayay ama uu isku dubriday ciidamo maleeshiya ah oo weerar ku qaaday ama ka dagaalamaya aagga galbeed ee gobolka Tigreega. qabashada Enkayo Mesele oo ahaa madaxii jabhadda TPLF u qaabilsanaa galbeedka Tigreega ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo ay dowladda Itoobiya ay shalayto ku dhawaaqday inay 10 milyan oo lacagta dalkaasi birta una dhigtay $260,000 oo dollar ay ku abaalmarin doonto cid kasta oo keenta warbixin horseedi karta in la soo qabto hogaamiyaasha baxsadka ee jabhadda TPLF ka dagaalamaysay waqooyiga Tigreega.